qayb waa laga baxay laga soo tagay xagga laga dhacay dad ay Soomaaliya maqal waxaas waa cadow waa shabaab kuwa saas mujaahidiintii dhabar jabinaya waan ognahay dadka siyaasadda kale ama siyaasiyiinta ku hawlan inay siyaasad ka raadiyaan ama jaanis ka raadiyaan inay cadowga loo nuglaado oo ay guusha dhibayso oo ka naxaya guusha oo ay dhibayso horumarka isagoo ka eegaya siyaasad iyo meelo xun oo aad u liita ee adeejinaya waxa hadda facebookyada iyo qaaqlayaasha baraha bulshada adeej waa wadin ogna wax nooma kala qarsoona fariinaan naqaanaa waadin ogna walaalayaal kuwaas waxaan ugu baaqaynaa daad siyaasad xagga noo dhig dalka aan xoraysanno qawaarijtana aan iska qabanno hanaan dhabar jebinina dadka mujaahidiinta iyo dadka safka ku jira qaaqle facebook oo aad lacag soo siiso adeejiso xukunna ku heli maysid siyaasadna ku heli maysid weliba dadka waxaas adeejinaya oo isticmaalaya kuwa dowladda federaalka xelalka ayaa ku jira markaasay dadkoodii hagardaamaynayaan madaxweynihii jamhuuriyadda uu hogaaminaya dagaalka bay dhabar jebinayaan isagoo isle waxaas inta lagu fashilmo ama lagu dhibtoodo ama adigu jaanis heshaa maan gaabnimo ka daran ma jirto adeer cidna qaldi maysid cidnana kuma qaldi kartaan kuwa waxaa nafta ka raadinayo siyaasad ninkii rabaa berri markaan cadowga iska xoreyno qawaarijta ha yimaado safka soo gala ninkii dawo haya ninkii xoolo haya ninkii xoog haya mujaahidiinta ha loo yimaado safka dagaalka ha la yimaado aan iska xoreyno cadowga ha kugu dambayso dacaayad iyo facebook aan uga shaqaysanaya galmudug iyo waxa aad ka shaqaynaysaa ha kugu dambayso waxaa dadkuna waa kugu fahamsan yihiin cid aan fahamsanayna ma jirto cidna qaldi maysid midna waa idiin xaqiijinaya kuwiina qaayi baa laga baxay waa la soo jabay xaggaa laga soo tegey hebel ku cambaaree state ku cambaaree naf ku raadinayo wallaahi daan wax fursado ku heli anaa ii xaqiijinaya oo siyaasadeed kuma helaysaan waxaad jaanis ku heli kartaan oo keliya inaad safka soo gashaan dadkiina la gashaan safka wax nacfiya oo dadkaas ay leeyihiin siyaasiyiinta aan dadkaan ka hadlayo lur maahana wax nacfi shabaab iyo shabaab u eke iyo fursad ku raadiye waa noo isugu kaaya mid qof kasta oo meel wax shabaab dantooda ama qawaarij danteeda meel ka soo muujiya ama in yar oo ayaga u danaynaysa ku kaca ayagu noola mid